gudoomiyaha Jimciyadda Ummad Khayriya Iidi Ismaaciil Cabdi ayaa waxa uu soo kormeeray ceelbiyood laga hirgelinayo amba barkad laga hirgelinayo tuulada Balayga Cas oo Jimciyadda Ummad Khayriya qurba joogta iyo waliba qolqol joogta ka tirsan jimciyadaasi lacag ay iska ururiyeen gaarsiiyeen 5 yoom oo lacag ah kuwaas oo ugu deeqay dadka tuuladaasi degan oo iyagu qodanaya barkadaasi ugu horeyna waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha jimciyadaasi iyo waliba gudoomiyaha tuuladaasi iyagoo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen ujeedada ceelkani hirgelinaysa ceelkani iyagoo ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal sidaad arkaysaan maanta shaqaale waxay ka shaqeynayaan barkadii haddaan idinku soo bilaabo barkadu waxa weeyaan hay'adda bisha cas ayaa deegaanka u timid waxay ku tiri haddii aad dhulka qodataan dhulkaas oo markaa ah 25 mitir oo isweer ah iyo 3 mitir iyo badh sidoo hoostaas sidoo gudoomiyuhu Maxamed Jaamac sharxi doono markaad idinku qodataan ayaa waxaan idin sameeynaynaa inaanu idin dhisno barkad shub ah oo 100 sano in gaaraysa ka badan bay ahayn kartaa isla markaana ceelkana waan idin dhooba qaadayna marka deegaanka waxay ku xidheen oo ay ku dhaaheen idinku qota deegaanku inta hore iyaga qotay kol ay ku qodaanba hawsha qacantooda iska wax ku qabsay inta ku soo gaarsiiyeen maalin dhaweed oo jimcihii aan nimid ayaa markii deegaanka waxay dhahay intii aan awoodeeda ah anagu waan qodi karnay waan qodnay marka ururka waxaan ku codsanaa bal waxa ay emergency-ga ay abaaraha inamada yar shaqeynaya masaariiftooda maalintii oo ah kuuligii inaad naga caawisaan boardkana waanu shirkii waxaan soo qaadanay maadaama ay emergency tahay hawshuna ay tahay hawl anfaclo oo deegaanka iyo dadka muddo dheer anfacaysa mashruucaana Ilaahay ka siiyay hay'adda bisha cas inaanu bal deegaanka waxa ay ka dhiban aanu la qabanno marka hawshii ayaanu kula guda jirnaa deegaankii bar marka aanu ka caawinaynaa inta ay 10 cisho gudahood oo 10 shaqaale ay gali doonaan haddii ay beedmo kala gudoomiyuhuna uu idin sharxi doonaa gudoomiyaha Balayga Cas Maxamed Jaamac hawshu sida ay tahay marka walaalayaal saad arkaysaanba maanta shaqaale way ku jiraan way shaqeynayaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inta aad arkaysaan go'an ilaa intaas oo dhan in lagu simo oo godku intaas oo dhan uu noqdo hoostana uu noqdo inta aad arkaysaan 3 mitir iyo dheeraada Rahmaanir Rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin amma ba'd ilaahay baa mahadle oo mahadnaqayna halkan isugu kaya keenay hawshan aanu hayno waxa kale oo aanu mahadnaqaynaa qolada hay'adda bisha cas tiri waanu idin sameeynaa godkan qota waanaga iminka qodayna gacanta ku hayna in badan horena waanu qodaynay habase ahaatee way naga xoog roonaatay hawshii haddii aanu nahay reer Balayga Cas way naga yara xoog roonaatay dabadeedna waxaanu la cabanay ururka ummad oo aanu naga caawiyay inta hadhay godka qodistiisa iyaguna way naga aqbaleen insha Allah ururka ummad iyo qurba joogta deegaanka u dhalatay dhamaantoodba waanu mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahad iska leh abaartana Ilaahay naga soo jabiyo u daay cirkiimka u daayay in kasoo aan wali anaga la helin dhul badan buu helay insha Allah waxaanu filaynaa Ilaahay si dhaqso ah abaarta inooga soo jabiyo mustaqbalkana inay wax ka tari doonto barkadini oo sida ay nagu yiraahdeen qolada bisha casi ilaa 100 sanadood ayay idin anfacaysaa bay yiraahdeen haddii Ilaahay deenkii uu gaarsiiyo shub baa laga dhigayaa gebigeedaba oo lagu xidhayaa jiinkada dusha laga saarayaa waa naga hawshii wadna qolada ururkuna way naga aqbaleen cabashada aanu uga cabanay waa salaamayna ururka iyo qurba joogtaba waana noo mahad celinaynaa Ilaahayna miisaanka xasanaadka ha ugu daro wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi iyo sida ugu heelantii walaalihiin goor walba ula garab joogtaan taageerada waa idinku mahadnaqaynaa Ilaahay idinkana idinka jisaysiiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Xamse Jaamac Xuseen